نمبا شلي يمد وشلي الصباح قلن كي هرو 4 ساعة 5 ساعة ميلها ساحي nin saaxiibkiisaha maalin dhaweyto qiso ku dhacday iiga sheekeeyay markaas waxaan ku yiri waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay siday ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilba idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkayn dhag bay tiri خلاص waa seexat wax yar ka bacdi tii kalena waa danta labadii indhood dam bay noqdeen wiil yar oo dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aadaa telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xarunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdegaha la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii daba dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weey inaad wadatid eeyku hogaamiya oo eeygu aad ka haysatid eeygaas aad gadatid yeena u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kale iska lum anoo xaaladii labadii midna aan sameyn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay keen buu yiri markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray buu yiri adhib al-ba's rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul layl baan u soo kacaa salliga aan haysta dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhiga masaa u taabtaa oo iska tukadaa ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eeg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul layl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subaxiga aan la gaarin صبحي markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhood baba waa siday bari hore ahaan jireenba Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama diray wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yari wax way wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasa takhasus gooniya haysta kaasa fi'un safiir hal yimaada asbaabtu ha aado لكن قلبي سمركي بس التوصل إنه وجو حرمه خالق الأسباب إله كانت هذا إنه كحر إلهي وحي لي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هدي إلهي نبكو قطعته وحكا كشفين كركا قاعد كرمال إلا أسجم ويان أسجم كيانين بقاعد وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هدي إلهي خير كوغو أصيبه كوغو تابتنا وحاد ogaanaysa إلهي wax kasta inuu awoodo ismigan ash-shafi aafaarta ka dhalanaysa rumaynta la rumeeyo waxa kamid inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u rumaysid oo ogaatid asagoo inuu jirada ka qaadi karo dhibo dhan ka qaadi karo
ayaa ka mid ah